dhammaan ardayda ka soo qalin jebinaysa dugsiyada sare ee dalka waxaan kula talinayaa in ay ka faa'iidaystaan oo ay apply gareeyaan ama ay buuxiyaan deeqda waxbarasho Hormuud Salaam Foundation si mataqaanaa ayagana uga faa'iidaystaan maadaama ay tahay deeq waxbarasho oo daahfuran taasoo la qaado imtixaankaas ardayga ku guulaysto ayaa nasiib u yeelanayo inuu ka faa'iidaysto deeqdaas waxbarasho magacayga waa Maxamed Xasan Axmed Dir waxaan ka tirsanahay ardayda deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ka faa'iidaysatay kana qalin jebiyey kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Soomaaliya haddana waxaan ahay bare wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare ee iskuulka City deeqdan waxaan ku helay markii ugu horreysay anigoo ah fasalka saddexaad ee dugsiga sare ayaan arkay ama boostan ka arkay ee soo dhigtay hay'adda Hormuud Salaam Foundation arday ku guulaysatay deeqdaas kadib waxaan go'aansaday inaan page-kaas ku xirnaado si aan markaan dhammeeyo form 4-ka anigana uga faa'iidaysto kadib markaan form 4 dhameeyey waxaan aaday gobolka kadib anoo gobolka joogo ayaan arkay boosta ee soo dhigtay hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ay ku soo bandhigayso ama ay ku baafinayso in la qabanayo imtixaan oo laga qaadi doono ardayda u fadhiisanaysa deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation kadib anigoo meesha joogo ayaan xareeyey waxay kadibna waxaa ii soo dhacday fariin dhehayso xilligaas imtixaanka la gelayaa kadibna waan soo duulay oo inta ayaan imaaday si aan imtixaanka uga qayb qaato kadib markaan imtixaankii galay maalmo kadib waxaa la ii soo wacay telefoon waxaa la ii sheegay inaan ku guulaystay deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation fursadaha aan deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation markaan ku guulaystay aan ka faa'iido waxaa ka mid ahaa summer course-ga ama in nala qabtay tababaro sidoo kale waxaan samaynay cilmi baarisyo kala duwan oo aan ku samaynay shirkado kala duwan oo aan u qabanaynay wax loo yaqaano xog aruurin sidoo kale markii aan jaamacadda dhameeyey waxaa la ii diray wax loo yaqaano internship oo aan ku soo qaatay maxjarka weyn ee ku yaalla Jazeera kaas oo mataqaanaa iga caawiyey inaan xirfaddii xoolaha aan si fiican u sii barto maanta la joogo waxaan ka shaqeeyaa iskuulka hoose dhexe sare ee iskuulka City Dar es Salaam waxaan ka dhigaa maadooyinka biochemistry taasna waxay iga caawisay markii aan cilmiga biology-ga ama xoolaha aan soo bartay ayaan mataqaanaa ku biiray ama lii qaatay iskuulkaas taas oo haddana aan ka qayb qaatay soo saarka jiilka cusub ee ardayda run ahaantii deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation keliya ma aysan iga kaafinin in jaamacaddii qarashka laga bixiyey laakiin sidoo kale waxaa isla maalinkii nala siinayay deeqda waxbarasho nala guddoonsiiyey laptops oo naga faa'iidaysanayno inaan cilmi baaris ku samayno iyo sidoo kale casharradeena uga qayb qaadano dhammaan ardayda ka soo qalin jebinaysa dugsiyada sare ee dalka waxaan kula talinayaa in ay ka faa'iidaystaan oo ay apply gareeyaan ama ay buuxiyaan deeqda waxbarasho Hormuud Salaam Foundation si mataqaanaa ayagana uga faa'iidaystaan maadaama ay tahay deeq waxbarasho oo daahfuran taasoo la qaado imtixaankaas ardayga ku guulaysto ayaa nasiib u yeelanayo inuu ka faa'iidaysto deeqdaas waxbarasho ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo i siisay fursaddaas aan uga faa'iidaystay deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation sidoo kalena aysan nagu ekaysiinin fursad waxbarasho oo keliya ay noogu dartay tababaro iyo weliba xirfado inaan baranno waxaan isleeyahay dhammaan ardayda kale ee Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan fursaddaas wayna ku mahadsan yihiin Hormuud Salaam Foundation inay qayb ka yihiin horumarinta iyo wax soo saarka ardayda Soomaaliyeed